kulanti wanaagsan daawadayaal idilhaantiin meel kasta aad joogtaan halkaad naga daawanaysaan waa janalka Som Swedish ee laga leeyahay wadankan Sweden inta badan aan ku falanqeyno Soomaalida ku nool guud ahaan Sweden si aan u soo gudbino xogtooda ee ku aadan wadankan iyo waxqabadkooda maanta barnaamijkeena waxaa marti noogu ah ustaad macallin aadan inta badan Soomaalida u taqaano aadan oo ah ciyaartoy hore u soo dheelay qaranka Soomaaliya ugu horeyn macallin aadan ku soo dhawaaw Som Swedish Media Group oo ah channel inta badan ka faallooda arrimaha Soomaalida ku nool wadankan soo gudbiya waxyaabaha ay Soomaalida wadankan ay ka qabtaan oo horumar ah ugu horeyn adiga ku bilaabayo magacaaga بسم الله الرحمن الرحيم ولا صابر وما سنت مقعي وآذن محمد إبراهيم آذن أور على يقانا سويدن أما صوماليا أما تذكر أصحاب أنت اسمك عسيرا آذن أور يقانين adigu nokooyo macna aadan inta badan dadka aad ku yaqaanaan magaalada kan degan laakiin waxa laga yaabaa muuqaalkan inay daawanayaan dad badan oo adiga aan ku garanaynin wax yar taariikh nololeedkaagi ma nooga soo bilaabi kartaa xilliga aad dhalatay إلا حلقة قنقر كاي ما شاء الله الحمد لله بدي دتك هذا مو شيئا لكن أنا قد أدي صح وشيء يا دي إله معنا أنت إيجارسية الحمد لله أنا كنا سكاب كنت نكوجي أيام رشتي وحنكون رشتي مقالة مقدشو حافظ لي هذا بولا إلهي وهذا لو بحي وبري ما يستنقل رشتي أنا كنت نكوجي هالكاس أيام دكسي قرآن يعني كقلي kadibna adiga lixdankii ayaa waxa la geeyay iskuulka konton sagaalkii waxa la geeyay iskuul Axmed Rajab aan ka bilaabay galaaska koowaad iskuul Axmed Rajab waxaan ku soo dhameystay ilaa fasalka afraad shanaad waxaan u soo gudbay iskoola macallin jaamac kadibna dugsiga dhexe waxaan ku dhameystay iskoola media centrale kadibna dugsiga sare waxaan ku dhameystay iskoola Sheekh Xasan Barsane intaas oo macnaha dhinacaas wax barashadii waaye laakiin dhinaca ciyaaraha kale way weydiin doontaa haddii aad markaas intaanan ciyaaraha aanan u gelin xilligii aad isleedahay waa aad ku soo qangaartay magaalada Muqdisho ma noo qiyaasi kartaa siday u ekeed magaalada Muqdisho jawi ahaan wallahi ma sha Allah Muqdisho hadda haddii aan xusuusteeda waana tagaa macnaha alxamdulilah 10 sano ugu dambeysay wadanka oo kuna naqanayo waa tagayay horta Muqdisho wax badan iska bedelay anaga waqtigeeni aniga waxaan xiisayn jiray kubadda ciyaaraha xiisayn jiray anaga waqtigeeni garoon meel kasto xaafadda aad degantahay qaasatan waa bari aan deganayn iyo Axmed Rajab garoomada waxaa ku yaala ilaa degmo kasto ilaa 5 garoon kubad lagu ciyaaro ku taalay Axmed Rajabna iska daabo garoomo aad u waaweyn ku yaaleen oo kubad lagu ciyaaro xamar xilligii adiga aad soo qangaaraysay degmooyinka aad isleedahay xilligaas waa magaalooyinka xilliga ugu qurux badan magaaladii xaafadee ama degmadii ugu qurux badneed aad isleedahay xusuustaada horta mar walbaba markaan aano xamar weyne iska waxay iska centerka magaalada ahayd oo macnaha dukaamada waaweyn iyo kulli kuwada yaaleen markaas suuq bakaraa ma dhisnaan wax walba macnaha waxa loo aadi jiray xamar weyne loo aadi jiray dukaamada waaweyn xaafadaha waxaa laga yaabaa dukaamo yar inay iska ooleen laakiin xamar weyne macnaha suuq ugu weyn oo ku yaalay xaafadaha kale deegaanay ahaayeen dad reer magaala wada deganaay Axmed Rajab waa bari Boondheere Shibis Cabdilcaziz intaas iyo hodan qaybtan soke dad waxaa deganaya reer magaalka wada deganaya waa la soo yaqaan magaalada inta la is arko waa la is aqoonsanayay kadibna magaalada way fiday aaday macnaha u sii fiday magaalada laakiin centerka markaas wuxuu ahaa xamar weyne dukaamada ugu waaweyn meeshan ku xasuusto aniga waxaad dhameysay waxbarashadii xilli goormaad ku biirtay ciyaaraha heerkooda aad leedahay waa caalami ama waa inta dadku ay daawo karaan horta ciyaarihii waxay la socotay waxbarashadii la socotay waxaan xasuustaa aniga kubad marka aan isdhaho waa laaday xaafadan ka bilaabay sharad oo 2003 ku bilawnay waxa lagu ciyaari jiray macnaha markaas saacad ma lahayn laakiin waxa lagu kala bixin jiray hal gool marka laga dhaliyo Cambia la sameeyay jiray waa la isbedel ahayd marka laba gool laga dhalayna saacad waa ku dhamaatay waa lagu kala baxay waxa laga yaabaa inay kugu qaateen 20 daqiiqo
waxaa laga yaabaa inay kuu qaato 3 saacadood oo maalinkaas maashka ay culus tahay marka anaga waqtigeena time ma lahayn waxaa lagu ciyaari jiray macnaha hal gool cambio hal goolna kala baxay laba goolna kala baxay ahayd laakiin kadib ciyaarihii aniga macnaha way la socotay ciyaari 62 63 waxaan bilaabay xaafadda inaan sharad ku ciyaarno waxaan ku ciyaari jirnay meel la yiraahdo qashi qobka Anzalotti oo hadda degmada laga dhigay waxaan ku ciyaari jirnay markaan yaraan ka wadaa waxaan ku ciyaari jirnay allaahid meel la dhigi Al Nassr wardhigley leegada kaawada xamar jab ku taalo shawriyaasha gaalshiro saabuun xaafad la yiraahdo oo xamar weyne ku taalo intaas macnaha ayaan iyo xataa meel halka xasgaagaar waa bari gadaasheeda meel iyo gaaban xataa meel aan kubad ku ciyaarnay ahayd laakiin hadda nasiib daro dhulkaas dhan waa la wada dhisnay meel hadda lagu ciyaaro ma laha marka waxay la socotay macnaha waxbarashadeedii iyo kubadeedii waa isla socotay macnaha laakiin hadda ay weydiis waqtiga aan macnaha aan kaba aan gato ogaagis kaba aan iskaga ciyaarin ilaa 66 67 laakiin 67 iyo 68 waxaan bilaabatay inaan xogaa kaba aan ku ciyaarno laakiin wixii ka horeeyay waxay ahayd kaba aan 66 markii aad ka soo baxdeen bacaadada kala oo sida garoomada xaafadda oo kale markii aad soo gaartay inaad kaba xiratid oo kale ciyaartii kugu horeysay oo kaba aad xiratay ustaadii ma ka soo muuqatay sanadkee ahayd ما شاء الله ها هذا واحد وسطها قيمة إلى هذا مالك اقتقاس وحيد لحد سديدي كنا سقال بقول لحد سديدي أيان معناها أن سيري بي واجس وحال إجي سيري بي على عيار يجري كوحة وحاجة أن قاركود دقمويني هاين كونا هاين مقعي وحيل هاين أن هذه الشركة اللي هاين مركا أن أنا وحنا عيار كوحلي يجي أنتونيو تشيك كوح مركز أن حمعل هاي ما قدومي ما قدومي وأنا اللي يجي معه إسلام قدومي كوحين وحوا هاي اللي يجري أن dhaqane Yusuf dhaqane ayaga way dhinteen Allahu naxariisto waa la ii sheegay way dhinteen ayaga marka anigoo bacadka Anzalotti ku ciyaareen sharad oo sumsu shilin ayay ciyaarkeen ciyaarteeda wanaag ahayd markaas yiraahdo aadan kooxan jirto 68 ma ciyaaraysa Serie B ha anagoo badan ay qaateen waxaan ka qayb galnay ciyaarahaas xataa kooxda bangiga dheelaysay 68 markaas ay igu horeysay kabo aan gashto isbartiibada aan galo laakiin kabo markaas ka hor 67 waa bilaabay degmada xamar jabaan ku ciyaareen isbartiibo vekiyan ku ciyaareen kubadda Antonio Jack magacaasi magac inta badan Soomaali maaha aniga markaas aniga waa yaray horta magacaas Antonio Jack aan iska maqlaayay waa iska qaatay magacaas waa iska ciyaarnay laakiin mar dambe waxaan raadiyay Antonio Jack muxuu ahaa Antonio Sheki marka waxa la ii sheegay inuu ahaa governor oo waagaas Talyaaniga dowladda Soomaaliya joogay wadanka Soomaaliya joogay inta xorriyadda la qaadanin nin saas oo ahaa oo governorka magaalada iyo ama madax ka ahay magacaas saas oo markaas ayuu qiimo ku yeeshay markii kooxdaas ilaa intee u dheeraysay kooxdaas waxaan u ciyaaray 68 oo ku guuleysay weyne Serie B-dii koox kala soo baxday mar labaad 69 hadana waa la qaatay hadana oo ku noqonay isla kooxdaan u ciyaareen istaadi koonaan ku ciyaareen hadana ma soo gelin macnaha kaalinta koowaad bangiga soo baxday waqtigaas waxaan xasuustaa oo gashay Serie A da gashay annaga waa harnay waqtigaas marka wixii ka dambeeyay 70kii la galay marka 70kii aniga waxay qaadatay kooxda kooxda DJ Anta Portuale dekadaha ayaa markaas ma gelin Serie A ma naqanin Anta Portuale waa wakaalad magac Talyaani waa wakaalad dekadaha waay ayaga markaas waxay sameeysanayeen koox ka ciyaarta Serie A da bilow marka anaga naqaatay dadkii ugu horeeyay 70kii naqaatay marka 70kii markay naqaatay anaga marka waxaan sameeynay ciyaar tijaabooyin ah oo ku ciyaareen gobolada degmooyinka marka nasiib wanaag anigu mar aan la ciyaarin koox Baydhabo markaas aan tagnay aniga iyo dhalinyarada isla wada soconay Baydhabo aan tagnay Baydhabo dhaawac ay ku soo gaaray caloosha jug iga dhacday qaliinaan galay adiga markaas waxay ugu qasabtay inaan ka istaago ciyaarihii muddo ilaa 2 sano aan ka fadhiistay ilaa 3 sano marka 3 sano anoo ka fadhiyo kubadda ayaa xaafadda waxa lagu ciyaaray waxaa degmooyinka markaas waxaa bilaabatay degmooyinka laana bilaabatay degmo laantii aan deganeen niman badan oo saaxiibo aan nahay qaar hadda way dhinteen kuwana way nool yihiin ayaan markaas kooxdooda waxa u ahay macnaha taageer ayagaan la socday nimanka saaxiibada ahay khaasatan nin hadda uu dhintay la dhihi jiray Mubaarak Macalin Allahu naxariisto in la dhihi jiray Guri Bianco ayaa saaxiibada ahay ayagaan marka xaafadda xiranayo galabta qof aan naga maqan noo ciyaar ciyaartii
warani aniga dhaawac aan ahay ma ciyaari karo ma yadhaniyo gadaal inoo istaag maalintaas kubaddan la ciyaaray gadaal u istaag waa badis kooxdu way badisay markaas waxay dhaheen jimcihii labaad la isku soo laabanay waxay dhaheen aadan anaga waana qiyaanaysaa waa inaad ciyaartaa haddii xataa qofka hadduu u yimaado xataa waa ciyaaraysaa tii labaadna waan ciyaaray waan badin marka aniga markaas niyadaaba ii soo dhismay wixii ka dambeeyay waxaan bilaabay inaan training sameeyo iskoola booliis kuliya shuud qoysma iyo baas difaac guura weerarkana gala giraan dhexa baale iyo gees goldhaliyaan shabaaqa gees marin bartaanka ban kayfan oo adag kubadii kaa gudbaynin goornaba macallin garashiyo garaad wacan gudoomiye